munaasabadan ujeedkeedu ahaa doorashada iyo caleemasaarka gudoomiyaha dalada ardayda ka qalin jebisay dugsiyada Imaamu Maalik ayaa wax lagu qabtay magaalada Muqdisho waxaana madasha ku sugnaa maamulka macallimiinta mu'asasada Imaamu Maalik arday kamida 24 dufcadood ee ka qalin jebisay dugsiyada Imaamu Maalik afar musharax oo u taagan gudoomiyaha ardayda iyo laba gabdhood oo ku xigeenka gudoomiyaha u tartamayay ardayda ayaa waxa ay wax ku dooranayeen laba sanduuq oo ay ku ridayeen warqadda ay ku dooranayaan gudoomiyaha iyo ku xigeenkiisa waxaana ugu dambeyn ku guuleystay gudoomiyaha cusub ee midowga ardayda Imaamu Maalik Axmed Xirsi Maxamed sidoo kale waxa gudoomiye ku xigeenka loo doortay Ayaan Asad Cismaan ugoran ayaa waxa goobta ka hadlay gudoomiyaha iyo gudoomiye ku xigeenka loo doortay midowga ardayda Imaamu Maalik Axmed Xirsi Maxamed iyo Ayaan Asad Cismaan عشرة إذا كبرتي إن أصار كسي وما أنا كما صوص إن شاء الله ما أنت ما كبرت سيدا سيكا قرب الإله إذن بإذن الله كونات بان كجعل بان إسكتب دمو بان بول كون أيضا قبنا مغررين مالك بإذن الله أيام رجينا إن شاء الله إن أسوكنا وأنا رجينا وأنا آمسنا إن أسوكيني كواتا الساعتين كلين بعدين محمد العلم برنامج كان تدكي سوق مقابل ما تسألني سيدا قرب البضنود على كده بيه إن شاء الله وحنا رجينا سيدا دي دورتين إن أنا نوصل بدورنا علي آذن يعقوب مدح وحبرشة مؤسسة إمام مالك يا أحمد صلاة وكمل أساسياش إمام مالك أيا سوى الجرى وقومها علي ضدك كشقي إن يقفصون دورشة وحان أمها علينا قدقي مالك برامجك markii uu mu'aasasada ay ka fariistay oo soo gudbisay inay maanta halkaan soo gaarsiiyaan runtii aan dadal iloobi karina haddaysan ayaga ahaan lahayn maanta natiijadan quruxda badan doorashadan sida u dhacday oo shafaafiyada ku dhacday haddaysan ahaan lahayn halkaan isticmaal lahayn in la helo rikoor sax ah oo ardada qalin jabiday diiwaan ay ku qoran yihiin inta shaqeeda inta aan shaqeyn inta xanuunsan inta dhimatay inta dhan cid walba in la record loo sameeyo iyo dhaqan gelinta wixii la qoray hadaan la dhaqan gelin wixii la qoray oo aan qarash badan wuxuu ku baxay iyo waqti badan iyo energy badan ayaa meeshan ku qoran documenti ayaalo documentigaas ila dhaqan gali labadaas hadii la helo maktabada iyo tabasho bixinta waa wax kale tabasho bixinta gudda xalin khilaafaadka la sameey doona ugu dambeyn ayaa waxa munaasabada soo gabagabeeyay gudoomiyaha mu'asasada Imaamu Maalik Sheekh Cabdiraxmaan Sheekh Yuusuf Ugaas in ay awoodda ardayda ku baahsan oo adduun ku jirto dhan in aruriyaan oo meel isku keenaan runtii waa hadaabta aan ka leenahay midowgan ardayda la sameeyo Axmed Xirsiina hadaladiisina waa kamid ah inuu muday doono oo meel kasta lagu raadin doono aad aan ugu faraxsanahay waxa kale aan rabaa in ay ardayda dhammaan wixii ka qalin jebiyay inay kala ogaadaan ama diiwaan geliyaan horta yaa shaqeeya yaa shaqeyn yaa mar kunti baad muddo yaa meel kala jira dhammaan inay ogaadaan kadibna ay qaaraan ay ku qoraan dadka shaqeeya oo meel kasta joogaan annaguna aan ka nahay mu'asasadii ayaguna dadka intaas 3,000 arday ku dhow ay ka qalin jebisay Maxamed Cali Weheliye Universal TV magaalada Muqdisho